waxaan ku bilaabaynaa magaca Ilaahay mid guud iyo mid gaar ah naxariista. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka ee ka baxa telefishinka Africa TV xaruntiisa Khartoum ee magaalada wadanka Suudaan. Barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa daryeelka caafimaad ee Soomaaliya. Tan iyo markii ay burburtay dawladda Soomaaliya ma aysan helin iyo dadka shacabka Soomaaliyeed toona ma aysan helin daryeel caafimaad oo ku filan. ilaa intaas oo dhan shacabka Soomaaliyeed waxa uu adkeysanayay dhibta caafimaad ee haysata. Dagaalkii sokeeye iyo dhibtiisa la soo maray oo dhan shacabka Soomaaliyeed waxay mataqaanaa ay u darlaayeen caafimaad darrada haysatay. Waxa barnaamijka maanta aan ku faaqidi doonaa daryeelka caafimaad ee Soomaaliya haddii aan fiirino wadanka Soomaaliya oo ah wadan aad u baaxad weyn oo ay ka jiraan baahi caafimaad mararka qaar koodna kalifta mataqaanaa masiibooyin ayaan barnaamijkan si fiican ugu la faguri doonaa. Barnaamijka waxa marti igu ah Galad Daahir Xasan oo ah arday ka qalan jabiyay jaamacadda Soomaaliya Sari oo ka haysta Bachelor Public Health ama caafimaadka guud. Wuxuu kaloo Galad ku diyaariyaa caafimaadka guud jaamacadda Jazeera. Dr. Galad ku soo dhaw barnaamijka. waa ku dhawahay aad u mahadsan tahay Cabdi Xawaare. waxaan salaan guud u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. waxaan salaan qaasan u dirayaa African TV oo maanta fursadan inoo siiyay inaan ka hadalno xaaladda caafimaad ee dalkeena maanta u maray iyo daryeelka caafimaad ee ka jira. aad in kugu soo mahadcelin. waa tahay waa mahadsan tahay Galad. sideen ognahay Galad ee wadanka Soomaaliya waa wadan ka tirsan wadamada adduunka hadeer dib u dhac badan ku yimi hadii aan lahayd dhan maamul dhan caafimaad wax walba. Soomaaliya marka la fiiriyo guud ahaan cusbitaalada Soomaaliya markaan caafimaadaan ka hadlayno cusbitaalada Soomaaliya oo dhan waxa loo qaasaa inay 60 hospitaal jaamacadaha wadanka ka jira ee caafimaadka lagu barto ama majaalka caafimaadka lagu barto waxay gaarayaan 19 jaamacadood. wadanka Soomaaliya tiradiisu waa 10,085,000 oo qof ee qiyaastii ugu dambeysay. dadka Soomaaliyeed 14% mataqaanaa inta u dhaxaysa 14 sano jir iyo wixii ka hooseeya 44 ay matalayaan shacabka Soomaaliyeed. 15 sano ilaa 64 da'dooda inta u dhaxaysana waa 52 ay matalayaan shacabka Soomaaliyeed. waxa la oran karaa shacabku inuu yahay shacab dhalinyaro. 65 sano wixii ka sareeyana waa 2.3 2.3 oo ah dadka waaweyn. waxaan ka akhrisan karnaa in shacabka Soomaaliyeed uu badan yahay dad middle ah oo dadka da'dooda tahay dad dhexaysa. marka bal sharaxaad kooban waxa naga siisaa daryeelka caafimaad ee wadanka Soomaaliya adigoo fiirinaya guud ahaan daryeelka caafimaad iyo macnaheeyihiisa oo fiican. okay marka hore horta aan ku bilaabo daryeelka caafimaad si guud ka bacdi insha Allah dalkan soo dhigan doona. horta daryeelka caafimaad waxa uu yahay in la hormariyo lana xakameeyo heerka caafimaad ee bukaanka ama bulshada markaas xanuunsan ayadoo loo fidinayo adeeg caafimadeed. marka yani daryeelka caafimaad waligiis uu jiri jiray adiga min bilaadanka si abuurmeen ilaa xilligan aan joogno jiri jiray. laakiin haddana wuxuu soo maray marxalado kala duwan sidii ay ummadaba ay u hormareysay asigana uu ula hormaray oo wuxuu ku socday xawaarahaas ayagana ay ku socdeen. marka ayadoo ay saas tahay waxaa jiray xaaladaha haddana markii dib dambe ka yimid oo loo ictibaarinayay inay marxaladii uu soo maro daryeelka caafimaad ay kala ahaayeen oo kale. waxaa jirtay xaalad wuxuu soo maraa individual care ama shakhsiga kaliya in la siiyo mataqaana adeeg caafimadeed. xaaladaas waa xaalad waxay iska ahayd dadku aysan ilbaxsanayn horumarkooda isku yaray. xaaladahaasna waxaa yani zaman ahaan loo ictibaariyaa wixii ka horeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. marka waxay iska ahaayeen waa dhakhtarii wuxuu daaweeyay kaliya bay ahayd. xaaladaas waa xaaladii koowaad ee markaas la yiraahdo xaaladii adeega shakhsiga. waxaa jiray xaaladii labaad oo ka dambeysay 3 xaaladood bay ka koobnaayeen. tii labaad marka waxay ahayd community care ama in bulsho mucayan ah in loo adeego. ayadaasna waxay sababtay inay yimaadaan doctorska inay soo raacaan dad kale nurses oo saacida maadaama individualki laga soo tago hadda la yimid community. waxaa jiray xaaladii saddexaad oo maanta aan ku jirno ah population care ama in mujtamac oo dhan adeeg caafimadeed la wada siiyo. ayadana marxaladaas oo marxaladda hadda aan ku jirno taasoo dabooleysa mujtamaca oo dhan inay helaan caafimaad wada siman inay helaan. marka waxaana
door muhiima ka qaatay adiga insha Allah gadaal baan ku falanqeyn doonaa laakiin qaybada ay dhahaan gargaarka adeega caafimaad ee daryeelka caafimaadka asaasiga ah marka asiga xaaladahaas badan wuu soo maray gargaarka caafimaad aslan waxa uu ka kooban yahay waa 3 xaaladood marka xaaladda koowaad oo ahayd in qofka mid sar loogu qaadayo xaaladiisa caafimadeed waa cudurradana laga hortagayo waa xaaladda midda labaad ee shaqalka labaad oo qabanayna waxa waa in laga hortago adigana maxaan ku yiraahdaa cudurrada iyo khatarta ay leeyihiin dhamaantood in laga hortago ayadoo la sameeynayo tawciya oo dadku wax loo sheegayo khatarta cudurka uu leeyahay wax la fahansiinayo xaalad kale saddexaad ah jirto ah in lagu daaweeyo qofkii markii hadii loo sheegay la isku day in laga hortago hadii laga hortago waayo cudurka uu yimid in markaas ayadana loo sameeyo in la daaweeyo oo markaas sidii loola tacaali karo loogala tacaalo marka xaaladaha marka daryeelka caafimaadka saddexdaas baa hadda lagu soo koobaa inkastoo oo min bidaaya ila nihaaya hadda daryeelka caafimaadka uu socdo badan yahay waa tahay galad Soomaaliya hadda waxaan ognahay hay'adda caafimaadka adduunka WHO Soomaaliya waxay u kala qaybsaa markii ay la tacaamulayso 3 zone zone waxa la yiraahdaa Somaliland zone waxa la yiraahdaa Puntland zone kana waxa la yiraahdaa Koonfur marka hay'adda caafimaadka hay'adaha hoostaga organization NGO-ga ee hoostaga iyo hay'adda caafimaadka lafteedaba qorshayaal baa uga digsan caafimadeed mataqaanaa zoneska sheegnay 3 zone sida ay WHO sheegtay iyadoo ay la tacaamusho Soomaaliya marka qaybaha daryeelka caafimaadka ah oo aan ognahay inay primary health care iyo secondary health care iyo tertiary health care saddexdaas marka fiirisid sidee bay kula noqonaysaa 3 zone mataqaanaa qaybaha ay caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka heerka u marayo 3 zone adigoo mid mataqaanaa xoogaa yar sharaxaad ka bixinay go'aan okay يعني daryeelka caafimaadka ee Soomaaliya xaguu maraya su'aashu saas inay tahay waan u maleynaya ma xumo daryeelka caafimaadka Soomaaliya sida maanta ka warhaynaba aan ka soo bilaawno min xukuumadii dhacday ilaa haatan aslan daryeelka caafimaadka ee Soomaaliya wuxuu ahay dawladii hore markii shaqeynaysa wuxuu ahay daryeel ku dhisan ay mas'uul ka tahay dawladda ay dawladdu gacanta ku haysay wuxuu ahay waa governmental mataqaana health care buu ahaa sax dawladii fi nihaaya waa dhacday oo hadda dawlad la'aan baa in muddo la iskaga jiray iyo dawladda ku meel gaaraba inkastoo hadda federal ku jiro marka yani muddadaas fadradaas macayinka ahayd waxaa jirtay dadku waxay iskala kulmeen dhib dagaal baa dhacay dadkii waa la kala qaxay oo waxa weeyaan kawaadirtii iyo waxyaalihii iyo dhan baa lumay dadkii waa iska carareen oo qax iyo waxba la iska galo dhib baa la iska galay في النهاية حالتنا عافمادed ma ahayn horta mid xaalkeedu yaani iska wanaagsanay ma aysan ahayn laga soo bilaabo dawladda markay dhacday ilaa iyo haatan waxa u maleysay inay ka soo roonaanayso yaani soo laabanayaan maxaan ku yiraahdaa institutionadii ka shaqeynay sheega daryeelka caafimaad okay Soomaaliya marka aan soo qaadano Soomaaliya markii dawladda ay burburtay wixii ka dambeeyay 3 zone baa loo kala qaybiyay sheegto Somaliland iyo Puntland iyo koonfurta marka daryeelka caafimadeed من دولتي مركز عاد إلا هاتن إلا يعني مدة هذا إلا هاتن ذاته يكجرتا وحنا مسؤول كأهاي organization أو NGOs با مسؤول كأها أي جالسنا مسؤول قوني كم إنسان ما دام عالمكو أي دكتين محنكو را قوانين إلا لوائح لو دوني عالم كودن in health for all ضد كودن عافمات كود جارو يعني أي جالسنا متخانة on مشروع أسبوعين عكودين أو يدتكو كساعدين مركا هذه شيء لا فيريو ويكلم بندد ماله هو يكلم بنداين Somaliland ومال إسكير دقن بإهاد مامور باود سناي بولان سيدو كلام مامور باود سناي دين عاس كونفورتا هذيك مامور كما يسنجرنا إن مدة إن كستو هذا مامور كي وبماشي مدح هذا إيتها مركا يعني ماشي مركا نبض كجرتو دريال عاف ما دو إيمان كريا هرت مركا روين نبض الله هلا marka meeluhu say u kala nabad badan yihiin bay daryeelkooda caafimaad u kala fiican yihiin ma hadda daryeelka caafimaad ee shaqeeya Soomaaliya marka aan fiirino hadda waxa shaqeeya waxa waay waa private health organization mataqaana health care weeyaan oo ma ahan wax xukuumi ah waa dad khaas ah waa dad khaas ah baale dadkii markay wax fahmeen loo baahan yahay caafimaadkii wixii arkeen dadkii waxa laga dhigtay wixii wax shuqul ah way jiraan organizationadaas oo kale ku sheegayo way saacidaan dadku oo waxay furaan meelo dadku way daaweeyaan way quudiyaan cudurrada
qaar markuu qofku u baahan yahay oo kaleeto in yara mataqaana laga warhayo daatu way sameeyaan marka wallahi xaaladda Soomaaliya yani markii hadda aa fiirisid macluumaad gooni oo dawladda hadda ay soo saarto ka mas'uul ma jirto laakiin haddana macluumaadka ay ka soo qoraan hay'adaha khaasatan World Health Organization WHO da yani marmarka qaar waxay la barbar dhigtaa hadda waxa data badana ma sheegan oo rasmi ah bay dhahan ma jirto marka yani hadda mar daato meel aan ka akhrinayo kale oo cadadka ka shaqeeya dhaqaatiirta ee Soomaaliya mar ay sameeyeen 2012 يعني dhaqaatiirtu waxay 0.5 bay mujtamaca kunkii qofood baa waxa ku soo aadaysa ever dhibic 4 dhakhtar يعني waa nisbada waa iska dareemi karaysaa aad u yar markii loo fiiriyo caalamka anaga hadda Afrika oo kale wadamada Afrika oo kale markii loo fiiriyo wadamada Afrika oo kaleeto 12.4 baa kunkii qofood ku soo aadaysay yani nisbada aan ka joogno waa dareemi karaysaa aad baa halkii dhakhtar buu daaweyn karaa 100 qof baylam tahay dadka Afrikaanka laakiin Soomaaliya waa kunkii qof waxa ku soo aaday 0.4 igara laha marka meeshaas kun maahan waa 10,000 yani ku qaldi 10,000 yani ever dhibic 4 baa waxa ku soo aaday 10,000 qofood yani marka halka uu ka yahay qaarada wadamada kale Afrikaanka ayagana 12.4 10,000 ba adii inkastoo iska liitaan daatu nurseska marka loo fiiriyo oo mataqaana nurseska iyo midwiferskan umulisooyinka iyo kuwan kaleeto nurseska ahba ayagana 1.1 10,000 ba Soomaaliya weey laakiin wadamada kale Afrika aan la wadaagna waxa weeyaan 16.1 10,000 ba marka in badan baa laga dhaamaa dhanka caafimaadka yani aad baan u dayacanahay marka loo fiiriyo daryeelka caafimaadka yani farqi waxa jira oo aad weyn marka waxa jira oo lagu qiyaasa daatu hadda ka dhawaajisayo life expectancy dadku intay rajeynayaan inay noolaadaan marmarka qaar baa yara mataqaana la xisaabiya ayadoo loo fiirinayo ay ku xiran tahayna daryeelka caafimaad ee dadka ay helaan nolosha uu qofka ku nool yahay marka yani wadankeena life expectancy يعني average way dadka qaar way jiraan way ka badan yihiin laakiin haddana waxa jira average markii la isku celceliyo inta ugu badan waxay ilaa daada sadii gaaraan khalaas wixii ka dambeeyo waxa waaye Allah asturo wasi socda waa 53 sano jir life expectancy Soomaaliga 53 sano jir ilaa intaas waxa waaye waa inta nolosha uu ku noolaanay mataqaana ay sheeg inta ka badan ninkii noolaadana ilaahay nooleeyay iyo mataqaana xaaladiisa ma waxa jira xaalado kale oo qofka daatu imtixaan oo ku xiran yahay noloshiisa maxaa yeelay caafimaadku wuxuu leeyahay muxadadad waxyaalo determinants oo asaga la xiriira buu leeyahay waxa kamid oo kale qofka inuu helo cunto fiican inuu helo biyo ku noolaan karo fiican inuu helo maxaan ku iraadaa ii sheeg في نهاية حالة ديس عافيمادات وحي كحرناني سان نولوشيس انتو نولان كراي مقالها او هيستو وي كحرنتا ايضا ذاتو marka taasuna waa mid oo 53 halka marka loo fiiriyo wadamada Afrika oo kale la yiraahdo yeeshag life expectancy gooda wuxuu gaaraa 68 sano jir ilaa intaas yani xogaa gaab baa noo dhaxeeyo markii ayaga loo fiiriyo caalamkana markii la fiiriyo waxa weeyaan 7 sano jir yani 2 sano bay ka weyn yihiin oo maleynaya صح marka taas way jirtaa ayadana waa lagu cabiraa ama xaaladda kale laga fiiriyo caafimaadka bulshada markay meel degan yihiin oo kale waxa jirta dhalaanka infants caruurta yar dhimashada caruurta ka yar 5 sano jirka ayadaasna saameyn aad ugu weyn ku leedahay yani aad u fara badan hooyada iyo dhalaanka Soomaaliya aad waxa weey waa wadanka koobaad ee adduunka ama labaad ee ugu badan dhimashada hooyada iyo caruurta ka yar 5 sano jir marka waa hadda markii loo fiiriyo kunkii cunug ee Soomaaliga ah ee dhasha oo ka yar 5 sano jir waxa dhinta sanadkii markii loo fiiriyo waa baryeere 147 cunug baa dhinta kunkii waa aad bay farbantahay runtii taasina waxa ku soo dayacnaanta in haysata dhanka aad weyn ama markii loo fiiriyo kaleeto Afrika ayaga waxa wadamada kaleeto average lagu sameeyay celceliska waa si guud ayaga loo wada fiiriyo waa 57 carruur baa ka dhimata sanadkii صح kunkaas cunug oo dhashay صح markii caalamiyan loo fiiriyo waa 48 marka waxa muuqata habacsanaan aad u weyn oo mataqaana dhinaca daryeelka caafimaadka inkastoo hadda ay imaanayaan institution oo maxaan ku yiraahdaa haday noqon lahaayeen private haday noqon lahaayeen kuwa ay saacidaan organizationada iyo waxa soo kale ay saacidi lahaayeen yani way ka soo roonaanayaan dadku waxbay fahmayaan oo waxba la baranayo dadkii fi nihaaya adiga caafimaadkooda uu ka soo yara mataqaana si oo steps buu ku socdaa alxamdulillah okay su'aashayda hadii aan mataqaana yare macluumaad dheeri ah nasiisay tusaale ahaan markaan u soo qaadno tusaale Soomaaliland oo kale zoonka Soomaaliland la yiraahdo
waxaa jira cusbitaallo fara badan oo runtii ay aan xukuumi ahayn iyo kuwa xukuumi ah oo WHO si toos ah ay dacmi u siiso runtiina ay laba amaano adna aadan hospital bakada oo si fiican runtii loo amaano oo ah mataqaanaa dhalaanka hooyada iyo dhalaanka cusbitaalkaas ka hor wallahi adna aadan horta hooyadan ilaahay khayr siiyo waxa weeyaan hawl adag bay qabatay waxaan u malaynayaa bilado badan bay ku guuleysatay ilaahayna ajirkiisa way ka heleysaayo de isbitaal kaliya meesha ma ahan waxbarasho waxay soo saartaa midwives bay soo saartaa oo arday bay meesha wax ku bartaa oo ay waxbarasho siisaa fi nihaaya marka aad dhinacaas marka loo fiiriyo kaleeto oo baahi badan bay dabooshay hooyo adna aadan ilaahay khayr siiyo way jirtaa oo mawduucaas hooyadii dhalaanka waliba waa mawduuca xasaasiga markii mujtamac la fiirinayo laga fiiriyo weeyaan maxaa yeelay haddii labadooda ay caafimaad heli waayaan yani mujtamac ma kaco weeyaan markaas ma kacayo mujtamac garaafka mujtamac ku ximayo ma kacayo ama waxaa jiro kaleeto maamo kale ayadana maamo xaawal yira oo waa ku soo socda oo muqdisho iyana ayadana dhinacaas cusbitaal iyo IDB kaamiyo yahay dad fara badan ayadaasna waxaa weeye mawduucaas weligeed bay ka shaqeynaysaa ayadaas dad waxaan u malaynayaa bilado badan bay ku guddoonsatay hawlkarnimadeeda iyo barnaamijkaas ay u qabatay mujtamaca yani waxaa jirtay u malaynaya aniga daatu waan tagay meesheeda oo waan arkay marka yani waxay samayn jirtay markii la soo qaxayo dadkii ay ka qaxeen muqdisho kale dhinacaas ay aadeen kaaman bay u furtay oo maxaan ku yiraahdaa xataa way saacidi jirtay oo ka dheeri ah inay mataqaanaa dhalaanka iyo waxaas mataqaanaa in ka badan bay service u samayn jirtay oo ay siin jirtay maxaan ku yiraahdaa cuntada iyo waxyaalahaas oo kale ayadoo mataqaanaa injoysyada ay u soo marayaan marka maamadaas ayadana waxaa weeyaan hawl adag bay ka haysaa dhinacaas maxaan ku yiraahdaa sheeg caafimaadka ah weliba qaybta dhalaanka hooyada sax hay-adaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ka shaqeeya oo mataqaana caalamiga ah wadanka aad bay u joogaan runtii aad bay fara badan yihiin hay-adaha caafimaadka wadanka jooga iyagoo wata magacyo kala gedisan iyo wadamo kala gedisan wata ilaahay baa mataqaanaa qaabka ay wax u qabanayna daacad ka tahay misana inkastoo ay ku jirto arrimo badan oo siyaasi ay hoosta ay ka wadaan laakiin inta inoo muuqata hay-adahaas caafimaadka ay shaqooyinka ay hayaan ee caafimaadka u hayaan ummadda Soomaaliyeed ma la is oran karaa way ku filan tahay shacabka Soomaaliyeed inagoo ognahay inay hay-adu aad u fara badan yihiin misana daryeelka caafimaad aanu mataqaanaa hadda hadda ka dhawaajisayba in hooyada iyo dhalaanka Soomaalida 147 kunkii qof ay ka dhintaan maxaa arinta ku daraysaa kala wallahi horta hay'adaha way adeegaan oo aanu mahad celinayna laakiin waxaa jirto mujtamacu waa inuu leeyahay markii yani dawlad markii ay jirto sax waxay mar kastaaba buuxisaa boos kastoo banaan waxay ka warhaysaa xaalad kastoo socota ama xaalad kastoo soo cusboonaata sax مثلا aan kusoo qaato kale nidaamka mataqaana adeega daryeelka caafimadeed asigaas wuxuu u baahan yahay ma ahan xaalad martimaada haddana tagta ma waa xaalad joogto ah baa loo baahan yahay dawlad kastaana waxay leedahay mataqaana national health service bay leedahay okay waxa u degsan ajendayaal baa u degsan oo strategies bay leeyihiin missions bay leeyihiin wax kasta bay ka shaqeeyaan marka dawladdu ayadoo saas ay tahay bay waxay buuxisaa baahi kasta soo cusboonaata markaas waxay isku daydaa inay ka fargareyso matal hadan ku soo qaato kale hadii dawladda state-ka ay tahay oo kale adeega caafimaadka ay u baahan tahay mantiqa muayyan ama meel yar oo muayyan ah aslan waa inay haysataa adeega mujtamaca meeshaas ku nool waxa ay u baahan yihiin waa inay haysataan oo asaasiga ah soma marka dawladda ayada waxay soo marsiisaa dawladda haday state tahay oo kaleeto inay mataqaana national state and then mataqaana district haday noqon lahayd ama locality ama tuulooyinka yani soo ma ahan ayadoo saas ay tahay marka waxaa jira inay keed haysan karayaan maxaa yeelay waa dawlad waxaan waa maamul Soma way haystaan waxoodii oo dhan fi nihaay laakiin markii lagu yiraahdo okay waxa mas'uuliyadii qaaday aan booskii inay buuxiyaan isku day organization sigu waa tahay galad wax yar oo maasan tahay qadka telefoonka ayaa qof ku jira halo دكتور السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. والله المقعد أديكو شيء يو ماشي أنا سوى عيسيد. ما يعيش سيد إبراهيم وحنج كمبالة. واضح كسر ده ولا البرنامج.
دكتور كاد أنا ما علني طبعا علامات كثيرة عنه يسوي بس حنا وزير طبعا ودن كان دولة لهين ودن كانت دولة مشقة وزارة الاتحاد السعودي مشقة أرجع قريب بدن أو قشة قارة السعودية يا ده وش يصير حكوين كان إنجاب وقصة مرة بس نحكي لك ودن كان أول تخينا هاي صح أنا فكرة كوسا بعد أسكت ده نحكي وين waa tahay aad baa mahadsan tahay waxaa dhegeystaan wuxuuna weydiiyey qashinada tusaale ahaan Soomaaliya meelaha lagu qabayo dhibaatada ay ku hayaan shacabka wadii tusaale ahaan lisiraado xaq oo kale ama dadka qaybtooda ay sheeganayaan qashinka oo anaga abal qashinka dhibaatada qashinka iyo waxaas buu ka dhawaajay waxaan ku dari karaa wallahi aad u mahadsan yahay walaalkeena waa wax jira oo in laga hadlana u baahan marka mawduucan qashinka aniga daatu waan arkay shakhsiyan ana arkayo shacab inta loo yimid leeyri waa la idinka qaadaya qashinka yiri lacagna la ka siiyo oo iska qaadin qashinka laftigiisa la ka iibiyo harna la ka iibiyo maxaa yeelay iskama qaadaysaan lacag baa ku soo qaadateen marka way jirtaa mawaadiicdaas oo tiro badan okay sababta marka okay sideen ku xalin karnaa mawduucaasi way jiraan hadda muqdisho qaasatan waxa ka shaqeeya umaleynaya sheeg turkida waxa ay keenaan baawartan qashinka lagu qaado kale waxyaalaha soo badan way ka shaqeeyaan laakiin waxa lagu dhahay maalintii oo dhan haduu wareego ma buuxsamo maalintii oo dhan haduu wareego ma buuxsamo maxaa yeelay dadkii fahan ma jiro fahan oo waxaan dhibaatada ay keeni karaan ama caafimaad darrada ay keeni karayaan ma jirto soo maaha dadku marka waxay u baahan in la fahansiiyo mushkiladda ay keeni karto qashinkan meesha la dhiganayo inay keeni karayso hadduu khatar u ogaado wuu ogolaanaya in laga qaado markaas laakiin ma ogolaanaya haddii uusan waxba khatar u soo ogeyn marka dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin laga wacyigeliyo qashinka laga wacyigeliyo dhibaatada biyaha mataqaana meelaha lagu qabo laga wacyigeliyo waxyaabo kaliya xataa maahan in laga wacyigeliyo sheeg maxaan ku yiraahdaa qashinkaasi xataa waxay u baahan yihiin caadaadka kale oo mataqaana yani aan sheeg la xiriirin caafimaadka ee keeni kara dhibaato sida hadda maxaan ku yiraahdaa gudniinka fircooniga oo kale waa mushkilad aad u weyn maxaan ku yiraahdaa sigaarka iyo waxyaalahaas la cabayo waa aad mushkilad aad u weyn marka waxaas oo dhan waxay u baahan waxyaalo badan ay u baahan yihiin in shacabka loo kaco dadka wax fahansan ay u kacaan haday noqon lahayn dawladda haday noqon lahayn shacabka aslan shacabku markay isku tagaan kuwa wax fahansan isku tagaan ay kuwa kale u adeegaan shacabku wada wanaagsananaya laakiin ninka saaduu meeshii iska joogo waxa way xaaladdu sidii un bay iska ahaanaysaa sax daawadayaal wali waxa nagala socotaan telefishinka Africa TV barnaamijkan waa barnaamijka caafimaadka khadka telefoonka ayaa naga soo wici kartaan shaashada idinka muuqda galad doctor galad waxa arkaysaa Soomaaliya qof baa guri nadiifinaya tusaalahan gabar baa guri nadiifinaysa maanta dhan bay guri hagaajinaysaa qashinkii bay soo ururinaysaa intay soo ururiso gurigeeda soo nadiifiso bay wadada ku daadinaysaa ama deriska ku dhowbay wadadeena marayay qashin iyo biyo ku sayaysaa arrintaas iyada maxaa ka oranaysaa wallahi waa mushkiladaha taagan bay waaxid ka tahay mushkiladaha taagan in dadka la wacyigeliyo mushkiladaha taagan bay ku jirtaa marka يعني سيدي جرتنا waxa ay tahay un gabadhu wixii waajib ayada waxay fiirisaa aslan shaqo iyada dib mana gurigeeda way hagaajisay laakiin waxa waxay gelina ma la siin in ay dabada aslan waxay u baahan tahay in mujtamaca kale ogaadaan shaqo adiga waxa jira ku qaas adiga ya amal yani shaqo qabanayso adiga ku qaas yimid mujtamaca markii la xushmaynayo oo horumar la rabo quruxda baladka la rabo waxa soo dhan hadii dadku ay ogaan lahaayeen waa la sameyn lahaay mawduucaas marka gabadhu kaliya waxay ogtaa gurigeeda inay nadiifiso dadkaas way imaanayaan ku marka qaato khalaas yani waa tahay daawadayaal waa isku soo laaban doonaa qadar yar haysiisa ka bacdi بشارة 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 برشو يدنكنا بالخير لها لما نمد الصوماليات مالك استوى عالم ككجوغا وحانقول بشارين إنه بالله تلفزيون كأفريكا تي في 4 وكبها أفريكا الصومالية أفريكا تي في 4 أيها كمدة
bahweynta kanaalada afrika ee xaruntoodu tahay magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan. Africa TV4 waa telefishinkii ugu horreeyay afka Soomaaliga ku baxo oo laga furo waddan Carbeed. Africa TV4 waxa uu beegsanayaa dhammaan dadka ku hadla afka Soomaaliga meel kastoo caalamka ka joogaan. Africa TV4 ayaa si rasmi ah hawada u soo galay 29 bishii 6 2014 idinkoo kala socon kara satellite-ka Arabside-ka. Africa TV waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyo taabagal ah oo aad ku diirsan doontaan sida barnaamijyo diini ah, kuwo wacyigelineed, waxbarashada, barnaamijyo tarbiyada ku saabsan, hidaha iyo dhaqanka, arrimaha bulshada, maaweelada iyo madadaalada. waxaad nagala soo xiriiri kartaan baraha xiriirka bulshada Facebook, YouTube-ka iyo Twitter-ka. idinkoo si toos ah uga daawan kara Africa TV4 barta internetka aynu ku leenahay ee ah africatv.sd. isla mar ahaantaana waxaad si toos ah uga daawan kartaan moobeelada. kulanti labaad dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo idinka imanaya si toos ah telefishinka Africa TV4 xaruntiisa magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. barnaamijka caafimaadka oo ka hadli doono maanta kuna falanqeyn doono ama ku jeexjeexi doono daryeelka caafimaad ee wadanka Soomaaliya. barnaamijka waxa martiigu waa Dr. Galad Daahir Xasan. Dr. Galad, qaybaha daryeelka caafimaadku waxaan u kala qaadnay primary health care oo ah daryeelka asaasiga ah sida mataqaanaa biyo nadiif ah, hoy, in uu mataqaanaa waxbarasho. daryeelka caafimaadka ah ayuu ka mid yahay asaasiga ah. waxaa kaloo jirta daryeelka caafimaadka secondary kan labaad iyo kan saddexaad oo ah tertiary. bal marka koowaad waxaa noo sharaxaad fiican ka bixisaa saddexdaas secondary, primary, secondary iyo tertiary. Okay, bismillah. horta daryeelka caafimaadka saa sheegtay saddexdaas loo kala qaadaa. waa saddexda marxaladood uu mari karayo qofka uu baahan yahay bukaanka. sax. marka aan soo qaadano kan koowaad oo primary health care-ka ah ama adeega caafimaad asaasiga ama koowaad aan raahno. aslan waa yani qofka inuu helaa adeega koowaad uu helayo markuu tago maxaan ku yiraahdaa maraakista markaas lagu bixiyo mataqaanaa lagu daaweeyo bukaanada. haday noqon lahayd oo kaleeto inuu qofka la kulmo dhakhtar, la wareysto xaaladiisa caafimaad, laga wareysto waxaas oo dhan waxay u baahan tahay waa primary health care-ka baa la yiraahdaa. ama marxaladda labaad oo ku xigto waa on xaalad isdaba jooga. marxaladaas labaad waxaa weeyaan qofkan xaaladiisa marka ay ka adag tahay mataqaanaa xaalad normaliya baa la tacaamulaya, care buu u baahan yahay oo in la jiifiyo buu u baahan yahay oo daawadiisa wixiisa laga warhayo buu u baahan yahay. marka ayadana xaaladaas waa xaaladda labaad. xaaladda saddexaad oo kale oo tertiary ahna waa xaaladaha khatarta ay u baahan khaliinada oo kale haday noqon lahaayeen in qofka wadnaha laga qalo kale in yani ii sheeg
qofku marka keliyaha ay fariistaan oo kaleeto lagu sameynayo keliyaha in laga dhaqo oo kaleeto yacni waxay u baahan tahay waa aalado aada mataqaanaa u waaweyn iyo dhakhaatiir aada mataqaanaa u sareyso takhasus gooniya leh marka ahamiyadda aan siina kan primary health care-ka oo maanta haddii si loo fiiriyo xiriirtaas lale mawduucan adeega bulshada wuxuu ka dhelaa door muhiima marka asigaas daatu waa mawduucii lagu jaanjaray in laga gaaro mashruucii ahay shirkii laga qaban jiray almaata declaration shirkii lagu qabtay 12 September 1938 oo Kazakhstan Soviet ka tirsaneed oo ay barnaamijkaas wadeen WHO iyo UNICEF marka barnaamijkaasi waxaa focuska lagu saaray health for all hadafka la lahaa wuxuu ahaa health for all in 2000 in la gaaro caafimaad taama dadku ay wada gaaraan caalamka oo dhan marka barnaamijkaasna waxaa lagu dabaqayay in maxaan ku yiraahdaa la hormariyo xaaladda caafimaad ee mujtamaca dhammaan caalamka meel kasta ay uga nool yihiin ayagoo loo marayo wadada ah in laga qaado kan mataqaanaa horumarsan oo marka adeega caafimaadka heesta la siiyo ka kaleeto mataqaanaa aan horumarsanayno yara caafimaadkii xaaladda caafimaadkiisa iyo adeega caafimaadkiisa daad way iska liitaan oo kale in la siiyo oo way jirtay qodobo la dhigay oo 8 ahay uu ka koobnay oo jira barnaamijkaas oo mataqaanaa adeega caafimaadka ee asaasiga oo 8daas waxay kala ahaayeen dadka in loo sameeyo maxaan ku yiraahdaa wacyigelin wacyigelin guud oo ku saabsan caafimaadka iyo khatarta soo wajihi karayso waa in la siiya xaaladaas waxay ahayd midda koowaad adiga ilaa 8 xaaladood bay ahaayeen in xaaladda labaadna waxay ahayd in la hormariyo sare loo qaado mataqaanaa xaaladda cunto iyo mataqaanaa isheeka gaajada laga hortago lana dhiirigeliyo in wax la beerto waxaasoo dhan soo maaha xaaladda labaad qodobka labaadna kaas buu ahay qodob saddexaadaa jiro ahay mataqaanaa in la siiyo biyo ku filan oo saafiya xaaladda nadaafadeedna mataqaanaa daatu kor loo qaado way ku jirtay markaas si u fiirisid aan soo qaatay qodobkaas biyahaas ku filan ee saafiga Soomaaliya markii si loo fiiriyo kaleeto nisbada ka hesho waa nisbe iska mucayan oo aan gaarayna xataa 50% way ka yiriin markii si loo fiiriyo dadkaas inay helaan biyo nadiif oo ku filan waliba biyo nadiif oo ku filan inta helayso aad bay u yar tahay hadde xaaladda nadaafadeedna waan garanayna waa tan hadda ka hadlaynayo qashinkii banaanka la soo dhiganayo marka waxaa jirto kaleeto qodobka afraad oo ahay sheeg hooyadii dhalaanka iyo mawduuc kale ku daraan oo family planning qorsheynta mataqaanaa familka oo kaleeto xaaladiisa dhalinka awlaadda inta u dhaxaynaysa gaabka iyo waxaas oo dhan family planningkaas asigana qodobka afraad buu ahay qodobka shanaad oo ahay asigana talaalka caruurta vaccination cudurrada faafa laga talaalay asigana qodobka shanaad buu ahay qodob lixaad jiro asigana ahay in mataqaanaa laga hortago lana controlo cudurrada markaasi mataqaanaa endemic cudurrada joogtada markaas cudurro waxaa jiro wadan kasta yani jooga oo xaaladooda iska yihiin endemic waa joogto yani xaaladooda hadba iska soo kaco la ogyahay laakiin aan mataqaanaa ilaa xad fog aan gaarin laakiin xad iska caadi sida marka loo fiiriyo kaleeto hadda wadankan aan joogno kaleeto cudurrada endemiga waxaa kamid cudurka malaariyada oo kaleeto waa iska dadku way wada qabaan laakiin haddana ilaa xad ma gaarsiisano nisbo mucayana iska qabto la ogyahay ilaa intaas baa qabto sanadkii yani mawduuc la ogyahay weeyaan ama waxaa jira kan toddobaad oo in la siiyo qofka daawo oo appropriate yani ku habboon hadday noqon lahayd cudurro kale hadday noqon lahayd dhaawacyo kaleeto iyo in mataqaanaa qodobka 8 oo ahaa in loo soo saaro daawooyinka muhiimka dadka in loo soo saaro waliba dadka aan awoodi karin xataa in marka dawlad kasta hadda 8 qodob waa 8 qodob la isku raacay laakiin dawlad kasta waxay sameeysan kartaa inay ka dhigto inay qodobo kale ayda ku darsato kaleeto way sameyn karayaan hadda sida Suudaan oo kale hadda waxay sameeyaan barnaamijka malaariyada waxa la ogyahay inuu khatar aadaya oo dadku ay wada qabaan oo Soomaa waa cudurrada endemic oo ku jira waliba kooga waliba Suudaan meel kasta waliba mara oo Soomaa aad bay u nugul yihiin mawduucaas maxaa la sameeyay marka mawduucaasi
hadda mar aan ka shaqeynaya dowladda hoose ee Suudaan Baxri yani waxay leeyihiin mashruuc u gooniya صح mashruuc u gooniya oo lagu daaweeyo balaan u degsan qorshe u degsan oo lagu daaweeyo mawduucaasi malaariyada oo kaleeto aad bay uga shaqeeyaan waliba mashaariicda kaleeto way ka xulisan yihiin oo hadii dhaqaale lagu bixinayo way ka dhaqaale badan yihiin oo dadka ka shaqeeya way ka badan yihiin oo marka waxa soo dhan way wada jiraan laakiin daawada mawduucan daawada aslan markii anagana loo fiiriyo Soomaaliya oo kaleeto waxa weeyaan yani daawada waxa soo qaata dad ba ka ganacsada صح daawadu markay dal soo galayso sida dawlad kasta u degsan qaanuun bay leeyihiin waxay soo maraan ii sheeg maxaan ku yiraahdaa idaaratul jawda quality control Soomahan bay soo maraan hatta waxa si gooniya wadamada qaar waxay leeyihiin in ma iska soo galayso daawada waxay soo maraysaa maxaan ku yiraahdaa national laboratory gas bay soo maraysaa ama health authority ko leeyahay jiraygana ma taqaana ay soo marayso kale waxa soo wala soo baaraya daawadaas waxa weeyaan markii tayadeeda la ogaado oo inay ma taqaana daawo fiican ay tahay soconaysa oo dadkuna ay u baahan yihiin markaas kaliya suuqa la gelin karaya marka anaga aslan waxa soo ma jiraan waxaan waxa weeyaan oo nin baa ka heesada uu gataa ka xanuunsan baa laga gada asigana waxa waa ilaahay iskaga caafiyeeday haddaan ka dhex galo dawooyinka Soomaaliya waxa ka helaysaa nin ka ganacsada dawooyinka ninkaas dawooyinka wuxuu ka keenayaa dawooyinka markay soo dhow yihiin taariikhdoodu wadamada dawooyinka laga soo iibinayo tusaale ahaan waxay ku siinayaan lacag raqiisa dawada ka raqiisan tahay ama ay ka quality yar tahay ayuu ninkii ganacsadaha soo keenaya soo iibsanaya wadan Kenya taasina waxay abuuraysaa in cudurro aan hore loo arag in Soomaaliya ka dhacaan in dadkii aanay yani waxba ka tarin dawadii qof baarkiisa kule dhowr sharobaan cunay ama dhowr kiniin habeenka ku seexda 10 xabo kiniin cunay laga aan waxba ka tarin halka sharci ahaan loo baahan 250 mitaqana miligram ama 500 miligram oo badnaan inuu qofku cuno Soomaaliya arintaas maxaa ka oranaysa dawooyinka sharci darrada la iska soo gelinayo ee aan la controlayn ee national laboratory oo dawadii baaraya waxa soo dhan dhibaatooyinkaas oo dhan maxaa doctor wallahi hortan yahow waxyaalo way isku xiran yihiin markaas uu fiirisid hadda daawadaas aan ka hadlayno ninka keenay aslan laba buu leeyahay wuxuu leeyahay faa'iidana waa leeyahay khasaarana wuu leeyahay faa'iido uu leeyahay dadka iska dayacnay daawadan ma aysan helin hadaan loo keeni lahayn meesha ku dhiman lahayn laakiin inuu dawo fiican oo asli ah u keeno Soomaaliya okay aan horta ka hadalno dadku isku mid ma ahaan dadka qaar mawduucaas hadda sheegay sidoo kale waa haday jirtay ka shaqeysto oo waa nin ma taqaana markaas aan ilaahay ka cabsanaynin oo hadda ii sheeg dantiisa kaliya fiirsado mujtamacaan oo adeegaynin Soomaa dadka kalena waa jiraan oo mujtamaca adeego daawadaas keeno ayagana anfac ka raadsada dadkana shacabka Soomaaliyeed ugu talgalay ilaahay ku caafiyo gaarsiye maxay leeyahay hadda maadaama dad mas'uuliyad iska saaray ma jirto daawo in loo keeno dadka Soomaa ninkan laakiin asaa mas'uuliyad is saaray tagay soo gaday keenay waa ka ganacsaday Soomaa marka asiga daatu door muhiim oo ku leeyahay mujtamaca laakiin waa hadii uu si sax uga adeegay waay haduu si qalad uga adeegay taas waa goonideeda ayadana arinta kale way jirto iyana Soomaaliya aad iyo aad caan ku ah waxaan ognahay tusaale ahaan Suudaan oo kale farmasiga ma aadi kartid hadii aad haysan waraaq qoran transcript si uu dhakhtarku kaaga iibiyo ama qofka jooga Soomaaliya waxaan ognahay farmasida Soomaaliya in la iska aado qof baa xanuun haya xanuunada qaybtoodna way is shabahan waxay jiraan calaamado ay ka siman yihiin uu aadaya wuxuu leeyahay inuu neerfa u kacsan typhoid baa haya halkan ay xanuunaysaa dawo hebelis qofku isagii baa dhakhtar wuxuu oranayaa dawadaas aan u baahnay dawada hebelis arintaasi oo dadka qaybtood ay xanuuno kale ka qaadeen hadda Soomaaliya oo kale waxa ka dhacay si wargeys aan hadda ka akhriyay qof baa wuxuu tagay farmasi dawo soo iibsaday dawo sheegtay isagu marka isaga dhakhtaraba aan u malaynayaa dawo uu sheegtay la siiyay dawadiina uu ka xanuunsaday wuxuu ka qaaday yani caloosha ayaa wax badan wax ka gaareen marka dadka Soomaaliya mana jirto dawlad controleysa mana jirto dadkina kuma baraarugsana dawooyinka la iska doonanayo adiga aan transcript ama waraaqdi caafimaadka haysan arintaas ma khatar ku ahayn wallahi horta khatar way ku tahay laakiin haddana wax kasta wax bay ku xiran yihiin hadda ninkaas markuu dhakhtarka aadi lahay waxa laga yaabaa maadaama hadda aan sheegnay sheeg dhaqaatiirta isbitaalada ka shaqeeya Soomaaliya inay yihiin isbitaalada oo private ah marka dhakhtarka la kulmaysa lacag u baahan yahay warqada ma taqaana lambarkan lagu galo lacag u baahan tahay
xaaladu way iska yara cakiran tahay dadkii dhaqaalahooda markii loo fiiriyo dhaqaale aad u buuran maahan waa dadkaas iska xamaalatada ah ninkii xamaalatada ahaayoo maanta quudkiisii raadinaya hadduu xanuunsado inuu dhakhtar tago way ku adkaanaysaa xal marka wuxuu ka raadinayaa wararka uu ka helo kuwa agaarkiisa hadda kahor yaasaan u xanuunsaday oo kale iyo daawadee cuntay iyo daawadii waxaa laga yaabaa daatu kii hadda kahor xanuunsada 2 sano ka hor daawadii uu soo qaatay qaybtii uu reebay inuu inta kasoo qaato cuno ayadoo dhacday oo xaalad kale ay ku gaarto marka dhaqaale xumada iyo mataqaanaa dadkii aan wacyi daatuhu oo taama aan qabin oo kaleeto waxyaalo badan bay waqtiga ayaan hayay Dr. Galad wasaaradda caafimaadka Soomaaliya markii wasaaradda arrimaha bulshada isku oran jiray Maryama Qaasim markii ay haysay waxay dejisay balaan ahaa ilaa 2016 oo caafimaadka Soomaaliya for all 2016 in qof walba Soomaaliya adeeg caafimaad bilaash helo waxa ku baxaysay barnaamijka 350 milyan oo doorbiyad u qorshaysay barnaamijyada noocaas oo kale ah hadii aan la fulin oo dawladda Soomaaliya noqoto wasiir bedel isqabqabsi shacabka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa dulman iyagu arrintaas maanay u keeneen halaag dadka Soomaaliyeed dhanka caafimaadka wallahi niyo markii istiraatiijiyad la sameynayo waa inay leedahay maxaan ku yiraahdaa yani mission iyo vision waa inay leedahay sax oo shaqalkan waa in weyga loo raacayo waa inuu mataqaanaa jihaysan yahay sax ay caddahay bari waxa la gaarayo istiraatiijiyada lagu dhaqmayo mawduucaasi way jirtay oo isheeg wasiiradda way dhigtay waxa la lahaay waliba isheeg national sector strategic plan sax oo 2016 dadku wada gaaraan maxaan ku yiraahdaa adeeg caafimaad bilaash oo Soomaa sax ayadoo markaas xataa ku jaandigaysay maamulada kala duwan inay mawduucaasi ay ku shaqeeyaan sax maamul walba loo qorsheeyay lacag gooni ah oo ku shaqeeyo marka yani aslan sida hadda muuqatana mataqaana barnaamij markii la sameynayo wuxuu u baahan yahay monitoring evaluation yani waxaan in la daba galo la qiimeeyo xaalka maanta uu marayo maxaa ka soo xasilay Soomaa hadii evaluation lagu sameyn lahay yearly oo kaleeto 6 months oo kaleeto hadii waxaas la sameyn lahay waxay noqon lahayd wax dhaxal gal la og yahay maanta meesha uu maray waqtigan fariinta shacabka Soomaaliyeed u diraysid oo dhanka dariiqa caafimaadka ku sameeyay wallahi dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmayaa in laga loo adeego mujtamaca u baahan maxaan ku yiraahdaa daryeelka caafimaadka oo kaleeto in loo isku saacido oo qofkii u baahan saacidaad oo kale qof kale inuu siiyo dhamaan kawaadirta waxbaratayna waxaan kula dardaarmayaa war inta aad qaban kartid oo kugu hareereysan risaalada gaarsii oo anface watahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka caafimaadka oo aan kaga hadlaynay daryeelka caafimaad ee Soomaaliya barnaamijka waxa martii uu ahaa Dr. Galad Daahir Xasan oo barnaamijkan aan ku socodsunay isagoo la shaqeeya maxalliyada Bahri ee caasimadda Soomaaliya Khartoum kala shaqeeya arrimaha caafimaadka wuxuu doctorku ka baxay jaamacadda Jaamacad Al-Azhar oo bachelor ka qaatay master degree wuxuu ku diyaariyaa jaamacadda Jazeera intii aan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa anigoo barnaamijkeeda la socodsiinay Cabdi Waara isma dhaafno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh